شليل واتسنو حفيز كامتحانات كقاضي امتحانات كقرنكا مركا وحفيز شقد الله هيستا سند كان محاكو سو كرداي سند كان محاكو سو كرداي صف مركا adduunka saameeyay COVID-19 oo saameyn badan ku yeeshay nolosha ibnaadanka dhanka socodka ganacsiga caafimaadka iyo waxbarashada ayaa soo kordhay adduunyanaha xanuunka COVID-19 wuxuu saameeyay waxbarashada si aad iyo aad ayuu saameeyay 160 dal oo kamid ah dalalka adduunka ayaa dhammaan joojiyay waxbarashada socotay Soomaaliland waxay ka mid ahayd dalalkaas markay halka marayso waxaan isweydiinay arinta imtixaanaadka markay timid su'aalo fara badan bay bulshadu isweydiinayeen wasaaraddu siday u qaadaysaa imtixaanaadka ardaydii may dhamaysan manhajkii ardaydii waxa saaran culaysyo kale oo caafimaad iyo dhaqaale xafiiska imtixaanaadku talaabooyinku qaaday ma ahayn qaar markaas uu ku dhaqaaqay laakiin waxaanu sameynay daraasad adduunka waxa uu ka yeeray iyo sidoo uu maareeyay imtixaanaadka waxaanu qabanay shirweyne laga gorfeynayo imtixaanaadka qaranka sida loo qaaday marka marnaba ma ahayn arinta imtixaanka aanu qaadayna ma ahayn arin gol ka fuula waxa ay arin loo tala badsaday aqoon ahaan iyo tala ahaan iyo shir ahaanba waxaan jecelahay si guud sanadka tirada dugsiyada sare ee imtixaanka inoo galay iskuuladu waxay ahaayeen 148 iskuul dalka oo dhan dugsiga dhexe oo qiimeynta ku jiray fasalada 8aad 501 fasal ayaa iyaguna ayaa dalka imtixaanka ka galay oo runtii aynu rabno ma taqaanaa iyaguna waa kuwa foomunada automatic ugu gudbaya oo qiimeynta ku jireen kuwa hadaba dugsiga sare 148 ka waxa weey sanadkan ardaydu COVID-19 awgeed waa la socoteen imtixaanku waxaan saameyn inuu imtixaanku la taan qaado ayaan ugu tala galay runtii anagoo talada wasaaradda raacayna runtii oo maadaama caruurta teeram kaliya ay wax dhigteen in aanada imtixaanku iyagana ciqaab ku noqon inaan markaa waxaan ku dadaalay saad la socotaan hal maalin baa la qaaday laakiin maalinta wax ay garan karaan ayaanu imtixaan ka dhignay taasi waxay faa'iideedu noqotay sanadkan maanta waxa saamay mooyee wax laga dhacay ma jiro laakiin haddana walba dadaalkiisii degree ka muuqanaysa oo ardayda degree caadiga ahaa ayay ma taqaanaa horta saare hau qadeeyaan inaan midna ma siiyo denin maqnaado imtixaanka gelin mooyee laakiin grade-kii waxa way arday walba wuxuu aqoontiisa grade-kiisa la gareebsan dalka waxa way 350 arday ayaa ay star keenay hadaynu gobolada soo kala qaadano selal ma lahayn ee star buu hoodle ma lahayn sool 330 arday baa keenay ee star saraar 18 arday daad mareed hal arday gabilay 19 arday haw hal arday awdal 89 arday togdheer 122 arday maroodi jeex 15 arday sanaag 3 arday saaxil 56 arday waa marka la yiraahdo ee star marka la yiraahdo ee normal caadiya sila 2 arday baa keenay buu hoodlana hal arday sool 390 arday saraar 19 arday baran 3 arday daad mareed hal arday gabilay 48 arday hawd 5 arday awdal 180 arday togdheer 224 arday maroodi jeex 74 arday sanaag 46 arday saaxil 95 arday waa ardayda foorfoorada sanadkan imtixaanka u fariistay 10573 in detail iskuuladooda ka heli doonaan iskuul walba imtixaankiisa maanta gudoomiyaasha qaadaya halkaas sida iskuuladu kala yihiin laga heli doonaa runtii dugsiga dhexe ee dadka ardayda aynu qiimeynay 12118 arday baa iyagana grade 8 u fariistay runtii waaxda maamulka iyo lacagta ee wasaaradda waxbarashadu door muhiim ah ayay ka ciyaartay qaadista imtixaanaadka iyo maanta loo taagan yahay shaacintiiba waxa
aad iyo aad somalilan magac iyo sharafba u ah in dhammaan kharashaadkii ku baxay imtixaanka qaranka ilaa maanta ay tahay kharash ay bixisay dowladdu miisaaniyadda dowladda oo keliya ay tahay taas oo noqonaysa somalilan markii koowaad ee taariikhda inoo gasha inaynu maxaali dhaqaalaheeda ku galno imtixaanaadka. waxaan doonayaa inaan halkan aad iyo aad aan uga mahadnaqo oo aan uga hambaliyeeyo ardayda iyo waalidka jamhuuriyadda somalilan oo aan leeyahay waxaad samayseen wax aad iyo aad u qiimo badan in aad iyadoo ay jirto meelo badan oo dee miyiga ah oo aan TV iyo waxyaabo badan aan haysan laakiin qorshaha imika noogu jira hadday yihiin sidii ardayda TV-yada loogu ilaalinayay iyo idaacadda loogu ilaalinayayba waalidku aad iyo aad bay noogala shaqeeyeen gobollo badan iyo guddoomiyayaasha gobolladuna waxay soo samaynayeen qaab ay ula xidhiidhayaan in ardayda ay daawanayaan oo ay la socdaan taa aad iyo aad baan uga mahadnaqayaa. mahadnaqa labaad wasaaradda waxbarashada iyo bahda wasaaradda waxbarashada oo isku duuban waxaan leeyahay wax fiican baynu qabsannay horena waynu uga sii socon karnaa. wasaaradda waxbarashadu tallaabooyin badan bay runtii qaaday oo ay ka mid yihiin sidii ardayga somalilan wax loogu heli lahaa ama dibad ha noqoto ama guud ha noqoto. waxaa jirtay shir aanu ka qayb galnay anaga iyo wasiirka iyo wafdi aanu ahayn oo waddanka sacuudi arabiyana lagu casuumay runtii halkaa iyo ilaa hadda cilaaqaad socda oo arrimaha dibadda ee wasaaradda waxbarashada ah. horta waxaan halkan ka hambalyeynayaa oo aan ugu maaragtay bishaaraynayaa jaamicadaha somalilan inay maaragtay aanu soo helnay alxamdulillahi rabbil caalamiin ay tahay cilaaqaad ay la yeelan doonaan jaamicadaha adduunka oo runtii hawshaana uu ka dambeeyey wasiir axmed oo aad iyo aad maaragtay ilaa imika cilaaqaadkaasi socdo dhowaanna aad maqli doontaan haddii alla ka dhigo natiijadeeda. waxaa kaloo jiray scholarship almanhal daraasi inaanu ka codsannay meelo badan oo adduunka ka mid ah oo ay ka mid yihiin dowladaha carabta. runtii shirarka maxaan ku dhahday codsiyadaasi way noo maqan yihiin maxaan ku dhahdaa rajo wanaagsanna waanu ka qabnaa. xafiiska imtixaanaadku maanta uu 25 jirsaday 25 guuradiisa wuxuu soo saaray midho fara badan faca ugu badan ee maanta Soomaaliland shaqeeya waa dadkii uu soo saaray ama ka aflaxay xafiiskan imtixaanaadka qaranka ee uu shahaadooyinka siiyey. waxa kuwa kamid ah agaasimayaasha ugu faraha badan ee wasaaraddan oo wax ku bartay Soomaaliland oo shahaadadeeda wax ku noqday oo ku shaqaystay taas waa ilaahay mahadii. waxa sanadkan adduunka ka dhacay COVID-19 adduunyada oo dhan buu saameeyay dhibaato weyn buu ka tagay noloshii bani'aadamka oo dhan buu xayiray laakiin hogaaminta suubanay caqabadaha iyo xaaladaha adag dhexdooda waxa ay ka soo saartaa fursado cusub. marxaladan adag ee COVID-19 ee 2020 iyo inta uu joogaba aynu ku xasuusan doono laba fursadood oo waaweyn bay wasaaradda waxbarashadu ka dhex samaysay muddada 7 bilood ee uu xanuunkaasi imika jiray ee uu hogaaminta wasaaradana mayalka wahayay wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska. laba achievement ama laba guulood oo waaweyn oo taariikhiyaba wasaaradda u galay. ta koobaad waxa weeye in marka koobaad duruus la sameeyo duruustii maanta waxaynu haysanaa dhammaan duruusta dugsiyada dhexe iyo dhammaan duruusta dugsiyada sare oo inoo duban fasalka shanaad ilaa iyo form 4. marka bari dhow waxaynu awoodi doonaa insha allahu tacaala inaynu ardayda buugaagta u raacino DVD-yo oo arday waliba uu helo buuggii iyo digistii iyo maqal muuqaala. waxaan aad iyo aad ugu hambaleynayaa xafiiska imtixaanaadka oo maanta natiijadii noo soo gudbiyey oo runtii hawl aad u weyn qabtay aan odhan karno wax ku ool bay tahay iyadoo aynu ku sugnayn xaalad adag oo COVID-19 ah. ardayoo dhanna waan u hambaleynayaa inta ay in ka badan ayaan u rajeynayaa biidnillaah. runtii waxaan ku bogaadinayaa wasaaradda waxbarashada oo ugu horeeyo wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska oo runtii u dhammaan adeegay waqti ayna soo food saareen waagi hore waxaa iskaga jiray nimciyo barwaaqo laakiin sanad dugsiyeedka ugu dambeeya waxayna soo food saaray muxuu ahaa corona-19 ogtihiin duruufaha uu geystay dalkeenna duruufaha uu geystay wasaaradda waxbarashada duruufaha uu geystay iskuuladii. markaa kolley waxaan leeyahay waa la laga kabanaya xanuunka haddii lahaydmo wasiirkiiyo wasaaraddana waxaan ku bogaadinayaa
in imtixaankii shahaadiga ahaa ay noo qaadeen oo dad badan ay lahaayeen sanadkan imtixaan la qaadi maayo oo arday badan ku naxday oo say islahaayeen sanad baa iska qasaaraya marka go-aanka uu qaatay wasiirka iyo tiinkiisa waxbarashada aad iyo aad baan u mahadnaqayaa. وبه نستعين على امور الدنيا والدين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله اجمعين. وفرحتها يسوع الله قيبسنينو ardaydi graduate garoobay iyo waalidiintooda waxaa sanaanta iyo amaanta iskale wasaaradda waxbarashada gaar ahaan xafiiska imtixaanaadka annaguna waxaan leenahay ambaliyo asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. horta waxaan ku ammaanaya xafiiska imtixaanaadka qaranka intii uu jiray runtii inuu ku shaqaynayay nidaam hufnaan leh, nidaam runtii daahfuran, nidaam runtii ay sugantahay xogtiisu aanay marnaba dhicin in imtixaanka uu dibadda u baxo ama la xado, natiijadu markaa meelbadu galo. aad iyo aad ba markaa howlmadeenada imtixaanaadka runtii ee qarankeena ka shaqeeya aan ugu mahadnaqaya dowlad hogaaminayo. haddaad dib u eegto markaa hawsha culus ee hayaan waxaad ka garan karaysaa 1996 tirada ardayda eebka gelaysa waxaa 196 arday. maantana waxaa 21,000 oo arday baa fasalada sideedaad u fadhiistay eebka. berigaa iskuulladu waxay hayaan 7 iskuul bay hayaan oo 7 goobood baa imtixaanka lagu qaaday ama 7 iskuul baa dhameeyey fasalka sideedaad gaadhay. maanta 501 iskuul baa ayaa fasal sideedaad leh oo imtixaan gelayay. maanta waxa weeyaan saa gudoomiye noo sheegay 148 iskuul baa form 4 leh, ardayda u fadhiistan oo 10,600. markaa culayskaasi wuxuu ku kordhay, markaa wuxuu la kordhay un miisaankii wasaaraddii baaxaddiisa usii baqaratay. waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa wasaaradda maaliyadda oo cashuurteenii qaranka ee laga horreeyey bulshada somaliland imtixaanka markaa bixiyey markaa kharashkiisa 90% baa odhan karaa. waxaan kaloo umahadnaqaynaa markaa deeqbixiyaha GB-ga la ihahdo iyo hay-adda Save the Children oyna sanadka naga kaalinaya markaa imtixaanka inay qayb ka mida markaa iyaguna ay naga taageeraan. waxaan adkeynayaa qodobka ah inaanay dhici karin markaa in arday uu fadhiisto fasalka form-1ka ama jaamacadda uu fadhiisto freshka isagoo ama shahaadadii fasalka sideedaad aan haysanin ama shahaadadii dugsiga sare aan haysanin. arday kusoo garanayay 12 sanadood laga farxinayo dhammaantood oo wada fureen oo maanta mid la leeyahay uu ka siibtay ama uu dhacay mid haddana waxaa xafiiska imtixaanada iyo daawud xafiiskii sare iyo wasaaradda waxbarashada iyo dadaalkii macallimiintooda ay u dadaaleen. markaa hadalku waa si gabagabo in badan baa la hadlay. kolka la maqlay waa imtixaanku asalkiisu waa kadey. maanta haddii lagu dhaha faatixada akhri ama xarakee wax laga yaaba inaad shaqto maalinta dhowr iyo 10 goor marka waxay imtixaan haddaad maqshido waa kadeedkiina inay warkaa ugu sahlo insha allah way kamar ugu sahlo iyagana waxaan kula talinayaa inay galaan jaamacadaha kuwa maanta weli ay galaan caafimaadka iyo neerka waxay galaan. xafiiska imtixaanaadka uu gudoominayo gudoomiye daawud waxaa runtii aan odhan karaa maanta waa runtii rubuc qarni xafiis jiray oo gaamuray oo runtii lagu aamini karayo hore loogu aaminay inay si cadaalada imtixaanka u diyaariyaan una qaadaan una natiijadana u soo saaraan sida maanta ka muuqata. hambaliyo ayaan leeyahay. hambaliyada labaad waxaan u hambaliyaynayaa dhammaan ardaydii imtixaanka ka wada qayb gashay ee dhammaantood guulaystay oo runtii halkana farxad inoo tahay inaanu jirin hal arday oo Somaliland u dhashay oo maanta ka naxay natiijadaas ay soo saartay wasaaradda waxbarashadu iyo xafiiska imtixaanaadku. waxaan u mahadnaq gaara xafiiska imtixaanaadka oo ugu horeeyo gudoomiyaha xafiiska imtixaanaadka Daawud iyo guud ahaan madaxda iyo shaqaalaha xafiiska imtixaanaadka oo muddo bilo badan ah aan har iyo habeen ka seexan jirin 12 habeenimo ka rawixi jiray xafiiska siday u soo galaan subaxii 7 ama ka hor oo marmarka qaarkood aan markaan halkan ugu imaado wajigooda laga dareemayay daal iyo diif laga dareemayay haddana
ay ku dhiiranayeen oo ay arkayeen mas-uuliyadda saaranayd intay laag tahay oo ah in diiwaangelin loo sameeyo database lagu hayo ama weel xogeed lagu hayo xogta dhammaan ardayda wax ka barata Somaliland tii jaamacadaha qura ayaa imika inoo hadhay jaamacadaha waynu gelinaynaa 350 oo arday xogtooda in la soo ururiyo oo mid kasta grade-kiisa iyo age-kiisa iyo fasalku dhigtiyo gobolkiisa iskuulku dhigtaa inuu yahay mid bulshadu leedahay iyo inuu yahay mid gaar loo leeyahay dee wax sahlan maaha gudoomiyaasha gobolada oo dadaal badan iyaguna runtii la sameeyay runtii waan u mahadnaqanaa daatada maxaa loo adeegsanayaa waxaa loo adeegsanayaa horta marka ugu horeysa student ID ama sumad u gaaraba arday kasta la siiyey ardayna aanu arday la mid ahayn wuxuu sidanayaa sumada uulada markuu ka bilaabo ilaa uu jaamacad ka baxo isma bedelayo waxa kaloo aan halkan doonayaa inaan xuso teacher certification ayay ama in ruqsad macallimiinta la siiyo ayay wasaaradda waxbarashada soo saartay wasaaradda awqaaftuna waxay ruqsadaas oo kala siinaysaa macallimiinta quraanka dhigay iyo kuwa diinta dhiga horta waxa ku jirta shuruudaha sharciga dhigay qofkii doonaya uu akhri karaa xeer number 7 qodobkiisa 29aad iyo 95aad baa wasaaradda waxbarashada ku amraya inay samayso ruqsad siin iyo diiwaangelin macallimiinta haddaanu furin weyno waxaanu jabinay xeerka aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.